السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحرم فاتوش فاميلي سو دواada walaashin fatuush kana ka daawanaysiin waa fatuush family baasha ala maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo shalay ka dhacay shoodin ka dhacay ama dilal ka dhacay Buffalo New York waa lagu weeraray dad ayaan kaga sheekeyn doonaa siyaasadda ay ku dhacday iyo inta qof oo ku dhimatay iyo sababta keentay inuu وجيستو دلكاسي قفك جيستي بأني شيء دورة سوري هذا سبسكرايب صار برنامجك أدبز ما حصلت سامر كستو نوجو حرنت هاي قناة كان وداوت سبسكرايب شير لايك فيديو لايك نرشيا أدبز ما حسنتين سناب شات تيك توك كل ويجوسو درسين كرتين سياد وأركتين فاتوش وحيابها كلو أي سمايسو أنت يوتيوب سمينيني haddii aad jeceshahay daahiye aad u qurux badan inaad gurigaaga ku xirato kalar kasta leh aad looga soo shaqeeyo daahiyada samarka waxaad ka helaysaa Fatuush Family telefoonka shaashada ku qoran naga soo cama Snapchat-ka waxaan kaloo ku haynaa go'yaashii sariiraha alaab aan inaba caadi ahayn iyo miska qadada iyo waxyaabo badan oo guryaha ku saabsan nala soo xiriir aad soo shala waxa dhacday New York ayaa ka dhacday Buffalo ayaa waxa ka dhacday waxaa la weeraray supermarket meel laga adeegto meeshaas oo dad badan 10 qof way ku dhimatay 3 qofna way ku dhaawacmatay lagu laayay shalay bay dhacday markii ay dhacday supermarket dadku way adeeganayeen waxa iskugu jireen shaqaale booliis dad retire oo meeshaas ka shaqeynayay iyo dadka adeeganaya bay ahaayeen waxay u badnaayeen dad senior dad waaweyn 65 67 يعني dad 77 dad waaweyn bay u badnaa inkastoo ugu jireen dad 20 jir ay ku dhaawacmeen dad 30 jir ay ku dhinteen laakiin dad waaweyn bay u badnaa 55 60 ka jira marka waa meel market ah oo ay ka adeeganayeen waxa u soo galay wiil 18 jir oo cadaan ah waxa uu sameeyay dadkaas buu xasuuqay markuu xasuuqay kulay waa la qabtay kadib wayna dhinteen dadkaas oo badan dadkii maanta ayaa la shaac bixiyay magacyadooda kulligoodna waxay ahaayeen madow 3 qof ayaa kaga jirta oo cadaan ah oo dadka dhaawaca ah laakiin waxa dhintay hal gabar baa ku jirta oo cadaan inta kale waxay ahaayeen madow waxa dhacday wiilkan 18 jirka wuxuu soo drive garay intaas oo kiiloomitir asaga oo ugu talagalay in uu maanta dil geysto oo dilkaas waliba uu u geysto dad madow ah inta uu ka gaaro waxa la helay warbixin hadhow ma kala qabtay in uu u soo baxay oo intaas oo kiiloomitir u soo jaray in uu raasay meel dad madow ay joogan qof kasta oo madow ay ka soo horbaxana uu dilo ugu talagalay oo sida uu sheegay marka waa isweydiin doontaa maxaa qoriga u dhiiba dadka maskaxiyan u xanuunsan because ma bal dhigi karo qofkaana kale uu fiyoy maskaxiyan dadka u xanuunsan maxaa u dhiiba qoriga waxaa loo waxay inuu yahay hate crime markii la galay waxaa laga soo helay in uu dhahay waxaan ahay white supremacist dadka cadaanka u xaq jirka inuu yahay baargagaxisada cadaanka bis marka waxa dhacday waxa aad igu sii shoogareeyay ninkan hadda ka hor sanad ka hor ay booliisku ogaadeen investigation waxa la geeyay baa la yiri xarun caafimaad iyadoo laga baarayo maskaxdiisa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan istilo uu rabay inuu istilo ama dilo ayuu rabay marka waa la qabtay waa la ogaaday maskaxda bay ka baareen markuu rabay inuu istilo ama dad aan raba inaan dilo uu dhahay wax judge adigu lama judge kareen waxba lagu ma sameeyeen because hadii la judge kareen lahaa oo dambi meesha loo gelin lahaa ma uusan gadan karin qoray soo waxyaabaha qaarkood aad ay kaaga yaabinayaan fiiriya sanad ka hor ayaa la ogaa hadda waxa la baarayaa la investigation how long uu booliisku ogaa sanadka la sheegay kadib ma la ogaaday ma la daba kacay why aan loogu gelin backgroundkiisa maadaama uu sheegtay in uu rabo inuu dad dilo oo maanta dadka taqalusiyo ama naftiisaba ka taqalusiyo oo isdilo waa waxa dadka uga yaabiyay waxa lagu leeyahay waxba background looma gelin hadii America hadda qof aan loo gelin background-ka ama inuu dad dili rabay ama isdili rabay qorigaaga waa gadan kartaa oo wax macna ama sameynayso qori lagu ma diidaayo marka hadda waa la baaraa investigation ba ku socota kulay waa la hayaa asagii investigation ba ku socota wuuna sheegtaba in uu dili rabay hadda maskaxiintiisoo la baara dadku wax ma u noqonaysaa حتى waxaa ku jira New York
sanadka staff u shaqeeya ilmahooda ku jiraan waa laakiin wiil waaye laakiin wuu dhaawacma kaliya wuu dhaawacma New York sanadkooda sanadka aqalka sare waa sanadka staffing qof oo staffkooda ku jira cunug u dhalay baa ku jiray qof staff gacan ka shaqeeya waaye meesha la shaqeeya sanadka cunug qof u dhalo ku jira dadku meesha iska garan way iska adeega subxaanallah ilaahu nugma keeno waa wax iska dhaca dadka ama maskaxiyan bay mental noqonayaan markii la qabtay kulli warqadii uu watay ayuu ku sheegay waantay waxaan u soo bixulay intan waa igu yarayd inta madow oon arko intan dili kale inaan dilo waliba markii la qabanayo wuxuu yiri meeshaan hadda dadku jiro wuxuu rabaa inuu another round dad kale raadiyo uu sii dildilo madow ah marka aad bay u xuntahay iskeer waa mararka qaarkood aad bay u xuntahay qof dad cayiman kaliya raadsanaya aad bay u xuntahay marka hadda waa lahaay kulli haysmeesh maxay taray 18 years waa aad u yari kulli maskaxdu ka jiran yahay wax kale lagu tilmaamo because isagoo intaas la eg maxaa nacayb madow galiyay marka hate waxay ku leeyihiin marka la qabto kadib hate crime baan ku judge gareynayna what's the point qofkan dadkiisii dhintay waa dhintay qof intuu dhiban lahaa hatta waxa ku jira booliis qof booliis soo ahaan jiray haweeney oo meeshaasna ka ahayd dadka ilaalinaya kamid ahayd oo ka shaqeeya waa retire waa booliiska markuu retire garo meel shaqeeyay iska raasatay supermarket-kaas ay ka heshay iska waxay siinaysaa bab wala dad waaweyn baa dad meeshay ka adeeganayeen kale wuxuu laan karo laay asagina waa la qabtay bal waa la arkaa soo su'aal waxa la isweydiinaa waayo qoriga u fududeynaya cunug yiriisu inta la eg intuu qoriga ka helaa waaga hore hadii la qabtay oo madaxiisa la baaray uu wasaas ma garan maxaa off street-ka maxaa caawin weyso meelaha dadka lagu hayo u geyn weyso marka insha Allah inta sarabay inaan la socodsiyo aad u mahadsantiin asxaabta saa markasta noogu xirantiin noo daawatiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh